الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سقالية طبنات كتاب كيني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح بإذن الله تبارك وتعالى القبر وما فيه وحان جيريدان كورن جيريدا محا كحيقة قبرقا كحيقة وإن أن أيها الأحباب حياة دبطة ama nolosha dhabta ah waxay ka bilaabataa baa la yidhaahdaa maca bidaayati rixlati lmowt. geeridayba ka bilaabataaba. adduunkan sooma la yidhaahdo waa faaniya, adduunyadu waa mid tegaysa, laakiin daarul aakhirati baaqi ah, midda joogaysaay waa aakhirada. marka waxay ka bilaabataaba noloshii dhabta ahayd oon laga dhimanaynin baa ka bilaabataba geeridii qabriga ka bilaabataa. qabriga markii qofka la geliyo naftuna ay ka baxdo halkaa la dhigo, waxaa loogu bishaaraynayaa khayr haddii uu ahaa qof fiican, ama waxaa loogu bishaarayn shartii aan ka waranay iyo dhibaatadii kale. wuxuu helayaa nicmo joogto ah hadduu ahaa qof fiican, ama cadaab joogto ah ayuu ku mudanayaa qabriga nafti. qabrigu waa awalu marxala min maraaxili rixlati alkhulud, meesha lagu waari doono in laga dhimanaynin, meesha laga bilaabayo waa qabriga ah. haddii uu qofku yahay saalix oo qof fiican uu yahay, fa huwa fii rawdati min riyaadi aljanna, beer beeraha jannada kamida buu ku dhex jirayaa. waxa kasii dambeeyana wuu ka fiican yahay qabriga, wuxuu kasii fiican yahay nolosha kasii dambeysaa ka fiican. haddii uu yahay kaafir ama munaafiq ama shaqi, qof ayaan dara ku dhacday uu yahayna, wuxuu ku jirayaa qabrigu u noqon xufra min xufari naar, boholaha naarta kamid ah ama godgodadka naarta kamid ah ayuu noqonayaa. waxa ka dambeeyana wuu kasii shar badanayaa. acaadana allahu najaana min dalik. ilaahay subxana wataala inaga badbaadiyo. cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waardaahu baa waxaa laga wariyaa inuu kor istaagay qabri, kadibna wuu ooyey ilaa uu garhkiisii ka qoyo, oohin uu ka qooyo. waa la weydiiye oo maxaa jiraa lagu yiri. wuxuu yidhi qabrigu waa awalu manzilin min manaazil alaakhira, waa gurigii ugu horeeyey oo guryaha aakhira ka mid a. maxadaad, waxaa jira maxadaad, meelo lasii dego ayaa jira. marka meesha ugu horeysa aakhiro waa qabriga weeyaan. wuxuu yihi fain najaa minhu famaa bacdahu aysaru minhu, hadduu qofku ka badbaado qabrigaas, waxa kasii dambeeyana wuu ka fiican yahay. hadduusan ka badbaadinna waxa ka dambeeyaa kasii shar badan buu qofka u dhiman. hada huwa xaalu lcibaadi fi lqubuur. sidaasay dadka xaaladoodu noqonaysaa qubuurta, mu'minkooda iyo kaafirkoodaba. rabbi baa waxaan weydiisanaynaa subxaana inuu xaaladeena ka dhiga xaalada dadka ahlu iimaanka, naciimo iyo janno ilaahay uu ka siiyo halkaa, raxmad iyo makfiro ina ilaahay subxaana watacaala uu siiyo. imaam mujaahid baa wuxuu odhan jiray, waxa ugu horeeya oo qofka la hadlaya waxa weeye godkiisa, xufratu, godka uu ku jiraa la hadlay, bimacnaa lisaanulxaal. ama haba la hadasho rabbi subxaana watacaala inaga maanta inaga hadlin baa ka hadlin kara. rabbi wuxuu qiyaamada waarta, alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjulum bima kaanuu yagsibuun. in afkaanba la iska dabooli doono, oo lugihii iyo gacmihii intay hadlaan isu markhaati kici doonaan, oo maqaarkaaga laga hadashiin doono, oo wax badan oo hadli weynu aragnay. waxaa kamid a marka in godku kula hadli doono isaga naftiisu. waa sida imaam mujaahid taabiciga mufasirka weynaa uu leeyahay. wuxuu yiri waxay dhahaysaa ana beytu duud, yani qabrigii oo hadli kasoo qaad oo ku dhahaya markii qofku galo, waxaan ahay gurigii waxyaabaha dixiriga iyo duudkaasaa la yidhaahdaa, dhul socodkaas isagaa gurigiisii baan ahay. beytul waxd aan ahay, meeshii kelinimada ayaan ahay, oo meeshan qof kula gelaya ma jiro, kii ku jeclaana kula geli maayo. beytul gurba, meeshii keli noqoshadaan ahay, waa gurba, qariib meel lagu yahay. beytul dhulma, waa mugdiga gurigiisa, ilaahay qofka nuur aan uga dhigin. anigu waxaasaan diyaariyey, adigu maxaa diyaarsatay? sidaasoo kale buu godku odhanaya. nacam, waa maalin marka aada u adag. ruuxulmujrimiin, dadka mujrimiinta ah, iyaga naftoodii
loo furi maayo, laa tufataxu lahum samaa, samada iyaga loo furi maayo. siduu rabbi ba yidhi sublan, dadka uu wanaagsan naftooda koraa la geeyaa ciliyiin. laakiin kuwan rabbi wuxuu yihi ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha, alkufaar iyo inta la halwadaagta ee dadkaas ilaahay beeniyey ee iskibriyey, laa tufataxu lahum abwaabu samaai walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fi sami alkhiyaati wakadalika najzi lmujrimiin. marka marnaba suuragal ma iyaga naftoodaasi inay ama janno iyo wanaag ay galaan ama meel fiican naftoodii la geeyo, suuragal ma ah. ayib, ilaahay subxaanahu watacaala haynaga dhiga dadka ahlu bishaarada iyo khayrka loogu bishaarayn. rabbina subxaana nimcadiisa iyo raxmadiisa iyo makfiradiisa hayna siiyo. jazaakum allahu khayra.